السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال إذا لهانتين بامل والبودنا داوتان هل كان ورايال تي في حرنتا إنه كلنا هاي مقالة مقدشو داود يال waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka waxaana idin la diyaariyay aniga Amiir Sheekh Maxamed Kashka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa casho sharaf u sameeyay safiirada dawladda federaalka Soomaaliya ee xiriirka la leedahay oo dalka ku sugan sida warkaasi noogu hayay wariyaheena Maxamed Cabdullaahi Bilegbile madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada casho sharaf lagu maamuusay toddobaadka xuriyadda ugu sameeyay diblomaasiyiinta iyo danjirayaasha dalalka aan saaxiibadana ee ka howlgala Muqdisho madaxweynaha oo hadal kooban munaasabada ka jeediyay ayaa ka sheekiyay sooyaalka Soomaaliya iyo marxaladii adkaa oo dalka soo maray. Ladies and gentlemen, let me take this opportunity to welcome you to Villa Somalia in this historical mudanayaal iyo marwooyin aan fursadan uga faa'iideysto inaan idinku soo dhaweeyo Villa Somalia run ahaantii waan ku faraxsanahay inaan idinku martigeliyo halkan si aad noogala qayb qaadataan dabaaldegga sanad guurada 59aad ee ka soo wareegtay madaxbannaanideena. Somalis around the globe have been celebrating this joyous occasion throughout the past week. Soomaalida ku dhaqan daafaha caalamku waxay munaasabadan qiimaha leh u dabaaldegayeen toddobaadkii la soo dhaafay oo dhan. Waa damaashaad Soomaalida ugu suntan rajo iyo farxad. Mudanayaal iyo marweyn sida aad ka warqabtaan Soomaaliya waxay sanadihii la soo dhaafay sameysay horumar xawli ah. Waxaan ku faraxsanahay inaan idin la wadaago in dawladdeedu ay gaarto guulo waaweyn intii aan talada hayay walow ay caqabado jiraan. With some challenges and difficulties. In the economic front, Somalia has made great progress in fighting corruption. dhanka dhaqaalaha Soomaaliya waxay horumar la taaban kara ka sameysay la dagaalanka musuqmaasuqa sar u qaadida dakhliga gudaha iyo buuxinta shuruudaha deyn cafinta ee hay'adda lacagta adduunka IMF la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dib u habeynta hanaanka dawladnimada ayaa dawladdeena suura geliyay inay si joogto ah u bixiso mushaaraadka shaqaalaha dawladda iyo in meesha laga saaro dhaqaalihii yaraa ee aan haysanay ee la lunsan jiray waxa intaas dheer dawladdeenu waxay ku guuleysatay inay xalliso gadaloolooyinka hanaanka maaliyadda waxaa naga go'an inaan beesha caalamka kala shaqeyno dib u habeynta hanaanka dawladnimada heer federaal iyo heer dawlad goboleed. We are committed to working with international partners to establish a suitable governance reform, both at the federal level and state level. Ladies and gentlemen, despite security challenges we have isagoo hoosta ka xareeqay in wadanka uu hadda cagta saaray dhabada xasiloonida iyo horumarka. Maxamed Cabdullaahi Salaad, TV-ga Royal, magaalada Muqdisho.